dowladda Ruushka ayaa ku andacootay in Ukraine ay qorsheynayso inay adeegsato hubka loo yaqaano Daytibam iyadoo ujeedadu tahay in xukuumadda Moscow lagu eedeeyo natiijada wasakhowga shucaaca ah ee ka dhalanaysa. Russia's defense ministers accuse Ukraine of planning to use what's called a dirty bomb. Concerns about a false claim by Russia that Ukraine is planning to use a radioactive dirty bomb on its own territory. sheegashada Moscow waxa ku gacan saaray xukuumadda Kiev iyo sidoo kale Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska oo soo saaray bayaan wada jira. Warbaahinta adduunkuna waxay si weyn diiradda u saaraysay ka hadlidda hubkan ama bambaanada loo yaqaano Daytibam. Russia's defense ministers accuse Ukraine of planning to use what's called a dirty bomb. Concerns about a false claim by Russia that Ukraine is planning to use a radioactive dirty bomb on its own territory. The Kremlin says it will continue claiming Ukraine may have plans to use a radioactive dirty bomb on the battlefield. Haddaba waa maxay Daytibam ama bambaanada wasakhaysan? Daytibam oo sidoo kale loo yaqaano radiological dispersal device waa hub isugu jira walxaha qarxa iyo walxaha shucaaca ah. Ereygan Daytibam ama bambaano wasakh ah ayaana mararka qaarkood lagu khaldaa walxaha kale ee qarxa gaar ahaan hubka nuclearka iyadoo hubka nuclearka uu yahay kala qubmidda ama qaybsanaanta atamyada taasoo keenaysa inta mar weyn la sii daayo. laakiin Daytibams ama bambaanooyinka wasakhaysan waxay leeyihiin raadad qarax oo aad uga yar waxaana yoolkoodu yahay inay kala firdhiyaan uumiga shucaaca qiiqa ama walxa kale halkii ay ugu horreyn burburin lahaayeen kaabayaasha. waxaana loo adeegsadaa walxa shucaac ah ayaa lagu sayriyaa goobta qaraxa taasoo sababta in wasakhowga ay ku keento xayndaabka qaraxa. cilmi baaris ay sameeyeen hay'adaha nuclearka sida guddiga xakamaynta nuclearka ee Mareykanka ayaa waxay ku sheegeen in qarxinta bamka wasakhaysan uusan sii daynaynin shucaac dili kara dadka ama u keeni kara xanuuno daran. marka la barbar dhigo walxaha qarxa ee caadiga ah bambaanooyinka wasakhaysan ayaa waxa la sheegayaa inay yar tahay waxyeelada ay u geystaan dadka laakiin khatarta deegaanka ee ay sababaan bambaanooyinkan ayaa keeni karaysa baahi loo qabo nadiifin baaxad leh oo ku kacaysa dhaqaale badan. xajmiga wasakhowga uu keeno qaraxa bamka wasakhaysan ama Daytibam waxa uu ku xiran yahay arrimo badan oo ay ku jiraan cabirka walxaha qarxa, cadadka iyo nooca walxaha shucaaca ah ee la isticmaalay iyo xaaladaha cimilada halka uu qaraxu ka dhacay sida ay sheegeen cilmi baarayaashu. bambaanooyinkan Daytibam adduunka wali lagama adeegsan inta la og yahay walow dadaalada lagula dagaalamayo ama isku dayada in la isticmaalo hore loo soo wariyay. laakiin Israa'iil ayaa waxa ay saxaraha ku samaysay tijaabooyin taxana ah oo ay weheliso mashruuc 4 sano ah oo ay ka waday mashiinada nuclearka si ay u cabirto waxyeelada iyo saameynta kale ee qarxinta bamka wasakhaysan ama Daytibam sida uu sheegay wargeyska Haaretz bartamihii sanadkii 2015. sanadkii 1995kiina jabhadaha Chechnya ayaa aasay balse waxay ku guuldareysteen inay bamka wasakhaysan ku qarxiyaan Berta Ismailovsky ee Moscow. sanadkii 2002diina dowladda Mareykanka ayaa xabsiga u taxaabtay nin la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-Qaacida oo lagu eedeeyay inuu maleegayay samaynta Daytibam kadibna uu damacsanaa inuu ku qarxiyo gudaha Mareykanka. waxaan intaas ku hakinaynaa tabinteena Tafaftir Media. waxaad ku mahadsantihiin waqtigiina. waxaan idinka filaynaa inaad nagu xirnaataan inta ka horeysana waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.